Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Lafta gareen ayaa qarka u saaran in maalinta berita uu ka baxo shirka ka socda magaalada Muqdisho. Qodobo badan ayuu qoonsaday. Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ayaa dhinac u rartay xisbi la rabo in looga dhawaaqo Muqdisho ama urur looga dhawaaqo Muqdisho. Haddaba qodobada ugu waaweyn ee uu qoonsaday lafta gareen iyo su-aasha jawaabteeda oo aan rabo inaad qaybta hoose aragtida kaga dhiibato. Ururkan waxaa lagu magac daray cadaaladda iyo wadajirka. Haddaba cadaalad iyo wadajir ma ka shaqeyn karaan tiimka Xasan Sheekh Maxamuud ee bilada jooga iyada oo la wada og yahay waxa dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka tabanayaan. Qaybta hoose noogu reeb aragtidaada muuqaalkan sii gudbiyo soo dhawaada. Lafta gareen ayaa dalbaday in laga dhigo xogayaha xisbiga ama ku-xigeenka waxaan ahaynna uusan u qaadi karin shacabka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddii aan si kooban u sharaxno, ururkan lagu dhawaaqayo ee lagu magac daray cadaaladda iyo wadajirka, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madax ka ah. Deegaanada Koonfur Galbeedna waxaa la siiyay cad la sheegay inaysan u qalmin oo aan eegi doono. Ha yeeshee waxaa ku-xigeen la sheegay in looga dhigay hogaamiyaha Galmudug. Sidoo kale waxaa xogayaha guud laga dhigay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Odowa. Lafta gareen ayaa su'aal ka keenay xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe diidayna in ay qaataan wax aan u qalmin, wuxuuna dalbaday in la siiyo midkood xogayaha ama sidoo kale ku-xigeenka oo Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya aysan qaadan karin xubnaha ugu sarsareeya. Wuxuuna tilmaamay in dana gaar ah ay ka leeyihiin haddii aan la qaadan tala soo jeedinta iyo xubinta ay dalbadeen. Ha yeeshee waxaa durbadiiba loo yeeray sidaan ogaanay Cabdiraxmaan Odowa waxaa laga dalbaday in uusan fashilin nidaamkan iyo qorshahan socda, isla markaana uu tanaasulaad sameeyo, xogayaha xisbigana la siiyo lafta gareen iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ha yeeshee Odowa ayaa diiday oo qaadacay. Hadda lafta gareen wuxuu qarka u saaran yahay in uu shirka ka baxo haddii aan tabashadiisa wax laga qaban oo dib la isugu laaban. Maanta ayuu qorshuhu ahaa in munaasabad la qabto oo la shaaciyo, mas'uuliin ay ka qayb galaan, lana sheego in ururkan uu yahay urur madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madax ka yahay, isla markaana uu u furan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay iska diiwaan gelin karaan. Haddaba dib ayaa la sheegay in la isugu laaban doono oo arrimahaasi dib looga hadli doono ilaa iyo caawa. Lafta gareenna xubno ku dhow waxay noo sheegeen haddii aan jawaab rasmi ah laga bixin ilaa iyo 4 subaxnimo ee berita ama 10 saad u taqaanaan in ay shirka faarujin doonaan oo ay ka bixi doonaan, isla markaana shacabka Koonfur Galbeed aysan u qaadi doonin wax ay calool iyo sidoo kale tabasho ka keeni karaan. Haddaba adiga ka ahaan mar kale haddii aan ku weydiiyo tiimka Xasan Sheekh Maxamuud ururkan ay sameynayaan ee cadaaladda iyo wadajirka ay ugu dareen magac ahaan ma ka shaqeyn karaan cadaalad iyo wadajir iyada oo la og yahay waxa dadka Soomaaliyeed ay ka tabanayaan 4 sano. Aragtidaada qaybta hoose noogu reeb muuqaalkan sii gudbiya, like gareeya, share gareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina. Afeef waxa inaga ah in aanan si gaar ah farta ugu fiiqeyn dad ama bartilmaameedkan uusan ahayn in aan weerar ku nahay mas'uuliyiin ama siyaasiyiin xisbigaasi dhisanaya. Ha yeeshee waxaan sheegaynaa xogaha iyo wararka aan helno, waxaana arrintan u baahan in ay wax badan ka ogaadaan guud ahaan shacabka nagu xiran ee markasta diyaarka u ah in ay helaan macluumaadka noocan oo kale ah.